وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa nolosha aakhiraduna way bilaabantaa laakiin dhammaad male iyadu adduunyadan dusheedana noloshaa bilaabmaysa ee dhammaanaysa siduu qofku u noolaan lahaa ilaahay baa inoo sheego inoo jideeyey aakhirada weyniga badan leh ee rasmiga ah ee dadkao dhanna ay u wada jeedaan ee xaggeeda u wada noqonayaan waxaad ku badbaadi lahaydna ilaahay baa kuu sheegay walaa yunabi'uka mithlu khabiir waman asdaqu min allahi qiila waman asdaqu min allahi xadiida ilaahay waa khabiir weeyaan waxaa dhici doona ka og waa ilaahay waxaa hadda dhacaya ka og ee ka warqaba waa ilaahay bani aadamka maslaxadoodu meeshay ku jirto ka yaqaano waa ilaahay sida ilaahay uu inoogu waramayana cid kaloo inoogu waramaysaa ma jirto ilaahay cid ka run sheeg wanaagsan ma jirto warka ilaahay uu noo sheegana waa dhab warka nebigeena calayhi الsalaatu wasalaam laynoogu soo dhiibana waa dhab waxna waa khabar waxna waa nadar khabarku waa warka ilaahay xaggiisa inooga yimiday iyo warka nebi maxamed sal اlه alay slam ay noo keeneen waa khabar waa khabarkii dhabtaha weeyaan waxna waa nadaro waxaan isheenu ay qabanayso waa nadar buuraha iyo badda iyo cirka iyo dhulka iyo warshadaha iyo daaraha iyo islaamaha iyo ubadka waa nadar waa waxaan arkayno weeyaan waxa maanta aan arkayno maalin baa iman doonta uu noqon doono qeyb wax inaga qarsoomay waxa aan khabar aan ku hayne ilaahay nebigu ay nooga warameen ee hadda aanan arkaynin maalin baa iman doonta ay noqon doonaan mushaahadaad wax inoo muuqdo oon arkayno laqad kunta fii gaflati min hada fakashafnaa canka gidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid laqad kunta insaankan markay naftu ay ka dhacdo caalamkii kale dhabta ahaa uu galo ayaa lagu odhan doonaa laqad kunta fii gaflati min hada noloshan hadda aada ku soo dhacday gaflad baad kaga jirta maad arkayn fakashafnaa canka gidaa'aka xijaab ayaa jiray adiga iyo noloshan hadda aada ku soo dhacdo xijaab baa inii dhexeeyey xijaabkiina waa la qaaday baa la odhan doonaa fabasaruka alyowma xadiid araggaaguna maanta waa xadiid xadiid maxaa loo yihi berta afka lagaa la yidhi ee lalese la soofeeyey meesha ay ku dhacdo kama soo noqoto bani aadamkana waxaa dhici doonta araggiisu xaqiiqadu markaas soo taaban doonaa noloshan adduunyada yare gaaban ee 60 sano ah ayaa nolosha aakhiraduna ku fadhidayo ogow
وهذا نلوشنا الدنيا وقفكو سيدي الصحدة هيد هدو أسعدو نلوش الدمانة وحي نغن صاحب نغن هذا نلوشنا الدنيا وقفكو أي كلنتو أي كهلودو وعي قد ينتهي آخردي ويدد بقفكو سيكلنتو خلاص ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قفك أدونك دوشي هذا كو عند بيلابا إلهي أن وحبكو أركينين إن لأنت آخرك هللي دونت أيا كدرا بإلهي عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه صحابي إن دولاها النبي عليه الصلاة والسلام مؤذن كساها أي النبي ويمد عليه الصلاة والسلام دنو حوري يا رسول الله سقو أويا يا أيو نبي ويمدي ما إن لأنت ما أنت أدونك أنك يقول هايستا أيا هدنا إن لأنت بآخرة يقول دم بيسا إلا ظاهر كآيات وصداس الشيء يسا ومن كان في هذه أعمى قفك أدونك دوشي هذا كو إن لا إن بالك إن لأنت آخرك هللي دونت أيا كوين بإلهي مركاسو صحابي لينا يا سيدا ظاهر كآيات أي شيء يسو ما نو أدونك دوشي هذا إن دولا وحبا أن أركينين ميي آخرنا إن لأنك لأيضا بيسا نبي الله لأن أيك قرآنك آيات تابنا قرآنك آيات نلوشودا بدلايي قرآنك آيات نلوشودا سامينايي لقد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها قلوبتا إنك قلوبتا إنه ما تقف الله أياك جبا وحنا الدوية أين مشغولية أكتر إنك قوحايا أيا فهمك قرآنك إنك هيا مانتا آخرada araggeygina fahmiga aakhiradana waxay naga hortaagan ziinadan adduunyada ee maanta ifka loo soo saaray bay naga hortaagan iyaka qur-aanku uu taabanaya aayad qur-aan markay soo degto aayaddaasi noloshooda waxbay ka bedelaysay markaa buu nebigu sal allahu alay wasalam ku yidhi may indha la-aantu tan maaha buu ka yidhi waata qalbiga buu ka yidhi camal qalbi oo qofka indhaha qalbigu hadday ka xidhmaan weeyaan qofka aakhirana indha la-aanta badani ay haleeli doonto thaabit binu qays saxaabi la odhan jiray ayuu nebigu masaajidkiisii uu ka tabay markaa buu nebigu maa facala thaabit war thaabit maxaa helay war thaabit maxaa helay markaasaa nebiga lagu yihi yaa rasuul allah 3 maalmoodba ninkaasina lama tukano musallihii maaragtana reerkiisa u dhawaabuu ku tukadaa saxaabada rasuulkuna radia allahu canhum cahdigii nebiga waxay ku xidhnaayeen masaajidka nebiga laanna masaajidka nebiga sal alla alay slam qur-aanka ayaa nebiga waxyiga ku soo degayey maalin walba warka samada ka imanayayba saxaabadu inay dhegeystaan bay u imanayeen laanna dad samada ku xidhan bay ahaayeen iyaku inaku dad dhulka ku xidhan baan nahay maanta dhulka waxaa ka soo baxa ayaa dadka zamankan maanta ay ku foororaan ayakuna indhahogu kor bay u jeedeenoo warka samada ka imanaya bay mar walba la socdeen ay dhegaysanayeen markaan maalintii saxaabigu hadduu hal salaad masjidka nebiga ka maqnaado 2 salaadood uu ku soo tukan jiray masaajidka nebigeena siduu u maqlo waxyiga nebiga ku soo degaya aakhirada ka warramaya ee khalqiga abuurka adduunyada ka warramaya ee maaragtaanay cirka iyo dhulka abuurkooda ka warramaya ee ummadihii naga horreeyena ka warramaya fiihi naba'u maa qablakum waalkhabaru maa bacdakum baa nebigu yihi qur-aankani waxa li wixii adduunyada hortiin dhacay oo dhanna uu ka warramayaa waxa soo socdana qur-aanku waa ka warramayaa buu rasuulku yidhi waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiinnana haddaad noqotaan xukun u baahataan qaabkaad u kala bixi lahaydeen qof walba uu xaqiisa ku heli lahaana qur-aanka ayaa inii caddaynaya baa ilaahay yidhi qur-aanku wuxuu qeexayaa aabbuhu inanka xaqa uu ku leeyahay ilmuhuna aabbaha xaqa uu ku leeyahay jaarku jaarka kale xaqa uu ku leeyahay madaxdu shacabka xaqay ku leeyihiin shucuubtana madaxdooda xaqa ay ku leedahay xaaska xaaskiisu xaqa uu ku leeyahay derisku deriskiisa xaqa uu ku leeyahay qaraabadu qaraabadooda xaqa ay ku leedahay xukun weeyaan qof walba xaqiisiibuu qur-aanku caddaynaya man qaala bihi sadaqa baa nebigu yihi qofka ihahda ilaahay baa sidaa yidhi run buu sheegay waman camila bihi ujir qofka qur-aanka ku camal falayna waa la abaal maryaa buu nebigu yihi ajar buu ka helaa qur-aanka waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofka dadka qur-aanka ugu yeedha yidhahda war qur-aanka han qabsanno war qur-aanka han baranno war diinteenna hanu soo noqonno war masaajidda ina geliya kaana dariiqa mustaqiimka ku dhacay buu nebigu yidhi waman xakama bihi cadal
qofka qur'aan ummadda ku dhaqay ummad ku xakumayna uu cadaalad falay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waxyiga samada ka imanaya ayaa saxaabada rasuulka radia allahu canhum haweenkooda ayaa ku xidhnaa dhallinyaradooda ayaa ku xidhnayd raggooda ayaa ku xidhnaa deedna markaasuu nebigu sal alla alay wasalam haabit binu qays buu nebigu tabo wuxuu leeyahay war ninkii haabit ahaa maxaa helay maalmahan masaajidka kumaan arkine markaasaa isla markiiba nebigu wuxuu u diray ziyaaru u diray nebigu sal alla alay wasalam inaku maanta jaarku jaarka kale kama warhayo walaakiin saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin waxay ahaayeen dad iska warhaya bay ahaayeen ka buka waa la ogaanayey ka masaajidka nebiga ka maqana markaaba waa la ogaanayey waa loo yeedhay markaa saxaabigii nebigaa ku doonayaa lagu yidhi isagoo ooyaya ayuu markaa nebiga u yimid sal alla alay wasalam markaabuu nebigu ku yidhi maxaa kugu dhacay 3 maalmoodoo isku xigta haabitow maxaad masaajidkayga u imi weyda bal ii sheeg wuxuu yidhi 3 aayadoodoo qur-aanka ku taalla ayaa maalmahan adiga dushaada ku soo degtay 3daasiba nebi allow aniga unbay ga warbixinayaan buu yidhi qur-aanka siday u fahamsanaayeen bal la soco markaa buu nebigu ku yidhi waa 3dee in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur addoon kasta oo faan badan oo xarago badan ilaahay ma jeclaa la yidhiyo aniguna nin xarago badan baan aho faanka jecel baan ahay buu yidhi ilaahayna ima jeclo aayaddaasaa caddaynaysa aayadda labaad waxa weeyaan laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun markaad nebi maxamed la joogtaan calayhi الsalaatu wasalaam ee nebiga xalaqaadkiisa aad fadhidaan hadaladiina hadalka nebiga kor ha uga qaadina baa la yidhi aniguna nin qaylo badan baan aho qayladeedu way dheer tahay aayaddaasina xagga dambe waxay ku sheegaysaa kuwa nebi maxamed iyo ku ag jooga hadalkooga nebiga hadalkiisa kor uga qaadaya in camalkii saalixa ay qabteen uu ka gubtuu ka buray ayay sheegaysaa deedna qur-aankaasi wuxuu caddaynayaa in aniga maaragtaane uu camalkayga iga buray aayadda saddexaadna wuxuu yidhi wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaazatin min alcadaab ilaa aakhiri alaaya waxaa la yidhi waxay jecel yihiin mar walba in lagu ammaano waxaynan iyaku aynan samaynin aniguna nin ammaanta jecel baan ahay 3 aayadoodoo dushaada ku soo degay 3duba anay iga warbixinayaan buu yidhi markaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lasta miman yafcalu dalika buu ka yidhi yaa haabit adigu sidaa ma tihid buu ka yidhi 3dan aayadood dadka ay ka warbixinayaan adigu kuma jirtid bal taciishu xamiida watuqtalu shahiida wayudkhiluka allahu اljanna buu nebigu ku yihi sal اla alay slam taciishu xamiida waxaad noolaan doontaa adoo ilaahay ku jecel yahay oo nebigiisuna ku jecel yahay oo muuminiintuna ay ku wada jecel yihiin ayaad ku dhex noolaan doontaa adduunyadan watuqtalu shahiidan gaal gacan gaalna waad ku dhiman doontaayo shahiid baad noqon doontaa shahiid wayudkhiluka allahu اljanna ilaahayna jala wacalaa jannaduu ku gelin doonaa buu nebigu ka yidhi marka qur-aanka ayay iyaku fahmayeen wuxuu ka hadlayo inakana de qur-aanka allah ina fahamsiiye de waman kana fi hadihi acmى fahuwa fi اlaakhirati acmى waadalu sabiila waa indhoole weeyaan indhoole muadinkii nebigeena calayh الsalaatu wasalaam aayadda daahirkeyga intuu soo qaatuu nebiga ula yimid uu leeyahay aayaddan anigoon ba iga warramaysaayo aniga nebi allow sidaanaan ahay markaa buu nebigu uhi may indho la-aanta loo jeeda buu nebigu uhi waa indhaha qalbiga xaqiiqada meesha laga fahmaana waa qalbiga xaqiiqada meesha laga arkaana waa qalbiga qur-aankuna aayad kitaabka qur-aanka ku taalla fii suurati alambiya waxay sheegaysaa caqliga iyo quluubtu inay mid keliya ay yihiin lahum quluubun laa yacqiluuna biha baa ilaahay yidhi dadka gaalada ee maanta adduunyada dusheeda inagula nool markuu ilaahay ka warbixinayay wuxuu yidhi quluub way leeyihiin laakiin waxba kuma qabtaan baa ilaahay yidhi waxba kuma xidhaan qalbigooda
marka noloshan adduunyada yare gaaban ee ilaahay nagu deeqay walaalayaal waxaan ku hagaajinaynaa waa diin aakhirada weyniga badanle waxaan ku hagaajinaynaa waa diin diin maxaa la yidhahdaa marka ma huwa diin innaka maanta diin haddaan maqallo waxaa laga yaabaa dad badan inay u fahmaan salaada oo la tukado iyo xajka oo la tago iyo zakada oo la bixiyo iyo soonka oo la soomo iyo shahaadateynka waa arkaan alislaam weeyaan arkaan masaajidka rukunadan uu ku taagan yahay laakiin rukunkaa keliya haddii la dhiso oo rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso masaajidkii weli ma taagnay ka dhigantahay rukunadii masjidka shubka sare qabanayey ayaa la taagay shanta arkaan alislaam haddaad la timaadidna weli islaamnimadaadii ma dhammaystirna ogow bilowgii baad joogtaa bilow miaal nin baa boos lahaa boos wuxuu yihi warniyo booskii aan lahaa baan aqal baan ka dhisayaa halkeed maraysaa baa lagu yidhi wuxuu yihi seeskii baan marayaa seeskii kow bundooy kaabadihiina waan dhisay buu odhanayaa tiirashii aqalku ku taagmayana waan taagay ma bilow buu maraya mise dhammaad buu maraya ninkaas bilow buu maraya bidaaya shanta arkaan alislaam haddii noloshaada laga helana shanta arkaan alislaam haddaad noloshaada aad ku dabaqdana weli waxaad joogtaa bidaayat lislaam baad joogtaa ee nihaayaddii weli ma gaadhin bay ka dhigan tahay bidaayaad joogtaa islaamku wuxuu ka bilaabmaa waxa weeyaan arkaan alislaam buu islaamku ka bilaabmaa islaamnimadu meesha ugu dambaysa ku dhammaatana waa dabeecadda wanaagsan weeyaan xusnu اlkhuluq sakfiga islaamku waxa weeyaan finishin aqalku waxaan marinaynaa finishinkii buu marayaa baad odhanaysaa marka waxaa loo fahmaya aqalkaasi waa dhammaad haddeetoole aqalkan islaamku waxa uu ka bilaabmaa waa arkaan alislaam waxa uuna ku dhammaadaa waa xusnu اlkhuluq oo nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam akhlaaqdiisii oo dhammaystiran ayay culammada islaamku intay noo diiwaangeliyeen ayay kutubta noogu qoreen imaam الtirmidi raximah اllah shamaa'il buu ku soo qoray shamaa'il imaam nawowi raximah اllah adkaara nawowi buu ku qoray maaragtaanay imaam nisaa'i raxmat ullaahi calayh adkaar alyowmi waleyli buu ku qoray waa maxay waxaasoo dhan xayaatadii nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam min waagu markuu beriyo ilaa uu nebigu gabalka u dhacayu seexanayo ilaa uu jiifka ka soo kacayo adkaartii u akhrin jiray baa laynoo qoray habkuu u soconayey baa laynoo qoray habkuu dharka u qaadanayey baa laynoo qoray habkuu ubadka ula dhaqmayey baa laynoo qoray habkuu reerihiisa ula dhaqmayey baa laynoo qoray habkuu ummadda ula dhaqmayey baa laynoo qoray adiga iyo anigana waxaa laynagu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana waxaa kaloo laynagu yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam aad adeecdaan oo hadalkiisa aad yeeshaan oo dhaqankiisa aad la timaadaan baa ilaahayna leeyahay waad hanuunteen buu ilaahay yidhi jala wacala rasuulka ilaahayna waxa iniigu ahaatay ku dayasho wanaagsan ku dayo malag ma hayn bashar buu ahaa baahiyada adu aad qabtana isna uu qabay haddaad adigu jiif rabto uu jiifsaday haddaad cunno cunaysa isagoo cunto uu cunay haddaad dhar xidhanaysa dhar uu xidhay haddaad reero leedahay reero uu lahaa haddaad ubad dhashay ubad u dhalay haddaad qaraabo leedahay qaraabo u lahaa haddaad jaar leedahay deris uu lahaa hadduu gaalo deris haddaad dad isku diinaad ahayn deris hadla tahayna yahuud buu nebigu deris lahaa calayh isalaatu wasalaam sidii dadkaasoo dhan uu xuquuqdooda u ilaaliyo u gutay waa laynoo qoray bas way qoran tahay anas binu maalik radia allaahu canhu ayaa wuxuu soo agmarayay nimo yaryaroo meel ku ciyaaraaya markaa buu salaamay taabiciintii la socotay anas wuxuu ku yidhi sidaa aan dhallinyarada aan u salaamay soo mad arkaysaan ha nebigeenna muxamed ahaa baa sidaa samayn jiray buu yidhi sal alla alay slam cabdullaahi bin cumar binu khadaab ayaa u yimid tufayl waxau ihi namari suuqa i raac maanta uu raacay haddana maalin kale u keenay suuqa irna mari uu raacay haddana maalinka saddexaad uu raacay maalinkii afraad buu yihi xaggana fadhiisi ya bna cumar halkan fadhiiso suuqa maalin walba waa kuu raaca waadna geysaa badeecad ka soo iibsan maysid meelna fadhiisan maysid waxna soo baayici maysid maxaa suuqa nagala doontaa meeshana fadhiisiyo halkan wax noogu sheego nagu bar markaasuu yihi waryaa kaagan caloosha buuran leh inamaa naqdu min ajli الsalaam waxaanu kala haynaa ma kuu sheegaa salaam baanu kala haynaa bas assalaamu calaykum
waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kalahaynaa. inamaa naqdu min ajli الsalaam. muslimiinta ayaan ducada isdhaafsanaynaa weeyaan. salaantu waa duco. taxiyatu ahli اljanna waa ahl aljannuhu salaanta jannada dhexdeeda ay isku salaami doonaan ayaa ummadda nebi maxamed salaan looga dhigay. waa salaan, waa duco. nabadgelyada ilaahay, naxariista ilaahay, barakaadka ilaahay korkaaga ha aadaan. boqol qof haddaad salaanta aad ku soo salaantood u soo ducaysato oo iyakuna ducadaa duca lamida ay kugu jawaabaan, waxaa laga yaabaa weli ilaahay mid keliya intoo laga dhexelo boqolka in ilaahay salaanta uu ku celiyey intoo lagu aqbalo ilaahay noloshaada uu kugu barakeeyo. lidaalika yahuuddu cahdigii nebigeena sal alla alay wasalam nebiga intay u yimaadaan ayay odhan jireen assalaamu calaykum, geeri dushaada ha ahaato. markaa buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ugu jawaabi jiray wa calaykum, waxaad tidhaahdeen baa layni yidhi. assalaamu calaykum waa maxay? dhimasha korkaaga ha ahaato, geeri ha kugu dhacdo weeyaan, dhimo. markaa buu nebigu odhan jiray wa calaykum, waxaad tidhaahdeen baa ninka haynagu noqdo. caaisha radia allahu canha oo nebiga ag fadhiday ayaa nimankii nebiga hadalkaa ku yidhi bay aad ula hadashay, hadal xun ay ku tidhi, akhzaakum ullah, lacanakum ullah. markaa buu nebigu yihi maha yaa caaisha, yaa caaisha buu nebigu ku yidhi kadaa buu yihi kadaa cayda. markaasuu nebigu ayay ku tihi caaisha, alam tasmac maa qaaluu, oo waxay kugu yidhaahdeen miyaanan maqlayn? markaa buu nebigu ku yidhi anigu waxaan ugu jawaabay miyaanan maqlayn, weliba tooda la aqbali maayo, laakiin taan anigu iyaka aanu lahay baa la aqbalayaa buu rasuulku yidhi. habaarkoogu aniga igu dhici maayo, laakiin kayga ku dhacaya buu rasuulku yidhi. lanna yahuuddu qadarka nebigay garanayaan calayhi salaatu wasalaam, waxay rajaynayaan in iyakana waxay doonayaan iyakuna nebiga habaar bay ula imanayaan oo geeri dushaada ha ahaata bay ku leeyihiin. iyakuna waxay ka rajaynayaan in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducada uu u ducaynayo wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu uu leeyahay in loo aqbalo bay rajaynayaan. walaakiin nebiga jibriil baa u sheegoo ku yidhi wacalaykum ku dheh. markaabaa caaisha caytantay. markaa buu nebigu yihi maha yaa caaisha, kadaa buu hi cayda, howmayaad maqlayn waxay yidhaahdeen. markaa buu nebigu yihi maa maqlayn waxaan anigu aan u idhi, weliba tooda la aqbali maayo, taydaa la aqbalayaaye. agtiisa nebiga intay yimaadaan bay ku hidhi soo jireen iyagoo rajo ka qaba inuu nebigu yidhaahdo yarxamuka allah, laakiin nebigu ma odhanayni, wuxuu ku odhan jiray yahdiikum allah, allah ina soo hadeeyo. yarxamuka allah ayaa iska leh, muslimkaa iska leh. oo midkiin hadduu hindhisoodo buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ku xamdiyo, ka ag joogay walaalkiiyo muslimkee maqlaaya waxaa ku waajib noqonaysa inuu yidhahdo yarxamuka allah, ilaahay ha kuu naxariisto. adigana uu kugu jawaabo yahdiikum allah wayuslix baalakum. markaa yahuuddu nebiga agtiisa ku hindhisoonayaan iyagoo rajo ka qaba inuu nebigu yidhahdo yarxamuka allah, walaakiin nebiga yarxamuka allah ma odhanayne, waxau odhan jiray ilaahay hayna soo hadeeyo buu odhan jiray. wa fii riwaayatina wuxuu odhan jiray adduunyadiina allah inii hagaajiyo, adduunyadiina. lanna nebiga calayh salatu slam nebinimadiisa way garanayaan, sida ubadkooga ay dhaleen ay u garanayaan inay iyaku ay dhaleen, ayay nebi maxamed nebinimadiisu xaq inay tahay way garanayaan. laakiin aayaadka ilaahay bay beenaynayaan baa ilaahay yidhi, fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun. aayaadka ilaahay bay inkarayaan, aayaadka ilaahay jala wacala ayay beenaynayaan. ubadkooga intay soo diraan bay nebiga u keeni jireen odhan jireen aabba orod nebiga u adeeg, orod nebigu ha kuu duceeye u adeeg. hulaam ayuu nin yahuudiya nebiga u soo diri jiray, markaa buu nebiga u adeegi jiray yarkaa yar sal alla alay slam, u adeegi jiray nebiguna waa u ducayn jiray mar walba, lanna nebigeenu naxariis socota buu ahaa. safar buu nebigu baxay, uu soo noqday, yarkii buu waayey. markaasaa lagu yidhi ya rasuula ka yara uu bukaa. markaa buu nebigu uu socday calayhi salaatu wasalaam, aqalkii uu ka yarjiifay buu nebigu galay, xaggaa madaxa agteedu nebigu ka fadhiistay. markuu arkay yarkii aad u xanuunsan ayuu nebigu ku yidhi yaa ghulaam, yaa ghulaam wiilkan yarow iska soo islaam. markaa buu yidhi aabbihii buu sidaa u eegay,
ilaa aabbihii bay isog yihiin moogta kii yaraa aabbihii baa ilaahay ka dhawaajiyo yidhi adic abalqaasim abalqaasim hadalkiisa maqal yeel hadalkiisa markaa buu kii yaraa ashahaad laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah deedna markaa buu ka soo baxay nebigu gurigii isagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar naftii baa ka dhacday kii yara markiiba ilaaha waxaan ku mahadinayaa buu nebigu uri yarkaa yar sababtayda naartii kaga badbaadiyey baa mahadla buu rasuulku yidhi taasuu uga dhaqmay dariskiisa zayd ibnu sucna ninkii la odhan jiray caalim buu ahaa xabr caalim yahuudeed buu ahaa nebigaa dayn ka qaatay calayhi salaatu wasalaam xilligii daynka lagu ballamay in la celiyo iyadoo aanan la gaadhin ayuu ninkaasi nebiga fursad buu la eegtay fursad caynkeeya saxaabada nebigu isagoo hareeraha ka socdaan oo suuqa magaalada madiine ay dhex marayaan ayuu nebiga xagga dambe intuu kaga yimid buu nebiga go-isii hunguriga kaga qabtay ilaa nebiga indhuhu casaadaan cumar binu khadaab baa seefta galka ka saaray markaa buu ninka yahuudiga hadlo wuxuu yidhi yaa muxamed haddaad tihiin buri nimankiinan carbeed ee qureysheed in badan baan nila noolayno nila mucaamaloonayno xaqa bini aadanka aad ka qaadataan ma soo celisaane aniga xaqaygiisii buu ka yidhi markaa buu nebigu sidaa u dhow la caddeeyey cumar binu khadaab baa seeftii la soo baxay oo yidhi yaa rasuul allah kaafirkan yahuudiga qoortaa ka gooyey igu fasax markaa buu nebigu yihi cumar may seeftaada galka ku cesha buu yidhi soo dhawow cumarow sidaa si ka duwan ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu yidhi inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynkii in laguu celiyo laysku ogaa maalmo ayaa ka dhimana dee ha gaadho anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee daynka dadku kugu leeyihiin dee waxooga iska sii laakiin cumarow sidaa kaamaan helina midiba seef baad la soo baxdo waad ka nixisee 8 saacoo timirana waa intuu igu leeyahay sii 20na ugu darbuuri waa intaad ka nixisee gaalada ayaa imika dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamku 90% diinta islaamku waxay ku fiday khuluqun xasan dabeecad wanaagsan dulqaad badan naxariis badan sabir badan duco badan dadaal badan oohin badan asbaabtaa buu nebigu risaaladiisa ummadda ku gaarsiinayey cumar binu khadaab ninkii buu kaxeeyey baytalmaalkii buu keenay intiisii markuu siiyey buu 20 kalena ugu daray waa kana qaado u dhaxay ninka yahuudigii war intan anu malihii buu ka yidhi intan aniga nebiga amar igu siiyey inaan kuugu daro waa biiro oo maxaa lagugu biiriyey sababtaan kuugu biirinina waxa weeyaan waa seeftii ee kuula soo baxeen kaa nixiyey buu nebigu igu yidhi ugu abaalgud intaas ugu abaal celi markaasuu ninka yahuudigii alaabtii oo dhan intuu dhulka dhigay buu yidhi cumarow zayd binu sucna ninka la ma maqashay markaasuu yidhi ma ninka caalimka yahuudeed haa ma ninkaabaa tahay haa ninkaa baan ahay oo adoo nin caalim ah oo diintii hore towraadna wax ka yaqaana oo towraadna weliba lagu sheegay nebiga sifaadkiisa iyo inuu imanayo maxaa kugu kalifay nebi maxamed jidka dhexdeeda weliba iyadoo aanan la gaadhin muddadii daynka in la kala qaata lagu ballamay ila daynku wakti buu leeyahay shuruud buu daynku leeyahay lagu kala qaataa aayadda qur-aanka ugu dheerna daynka ka warramaysaa iyadoon xilligii la gaadhin maxaad nebiga sidaa ugu dhibaysay buu ku yidhi sifaadkii nebiyada lagu sheegay oo dhan muxamed waan ku arkay buu yidhi ilaa 2 mooyaane labadaas sifana nebi maxamed kama soo daahiri karayso ilaa la taabtaabto mooyaane sifada koobaad waxa weeyaan jaahiliintu markay xaqiisa ay ku xadgudbaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam jahliga loo geysanayo ee jahaladu ay xaqiisa ku xadgudbayaan dulqaad unbaa nebiga uga ziyaadee maba cadhooda buu yidhi waa sifaadka nebiyadu ay leeyihiin cadhada nebiyada iyo dulqaadkoogana marka laysku qiyaaso waxaa qaaliba oo sareeya dulqaadkoogaa sareeya dulqaadkooga
shahaadateynka iga maqal buu yidhi hortaadaan ku laqinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh isagoo islaamay oo cumar uu gacanta hayuu nebiga u keenay nebiga hortiisana uu ku ashaatay imika waddankan aan joogno ummad kale aynala nool imisaan akhlaaqdeena ku bedelay ibraahim aladham allah ha u naxariistay ayaa nin gaala oo ay wata ayaa u yimiday markaasaa lagu yihi sheekhaasi waa sheekh ibraahim baa la yidhaahyo waa nin caabid oo rabbaaniyo ilaahay buu ku xidhan yahayo dadka muslimiinta agtoodana qiimo weyn buu ku leeyahay ninka yahuudigii baa soo qaaday aygiisii buu soo qaaday baa la yidhi markaabuu sheekh ibraahim aladham oo halkiisii fadhiya buu ula yimiday sheekh ibraahim ma adigaa lagu yidhahdaa markaasuu ha ibraahim baa la yidhaha ibraahim baa la yidhaha ibraahim adham ha ma adiga ahaa su-aal baan ku weydiina maad ka xanaaqi ma weydii insha allah weydii adiga iyo aygeyga midka fadli badan buu ka yidhi nin gaalo oo aan isku diin ahayn hadduu hadalkaa kugu ohan laha adiga ka waran see yeel lahayd soo dagaal maha soo maha de sheekhii dhulku eegay uu fikray wuxuu yihi kolkaan dhinto ee laysoo saaro banka qiyaame haddii kitaabkayga gacanta midig layga siiyo janno galo maalinkaa aygaaga anaa ka fadli badan buu ka yidhi laakiin kolkaan dhintay buu yihi ilaahay maba qadaree haddii kitaabkayga gacanta bidix layga siiyo naar laygu tuuro aygaagaa markaa iga fadli badan buu ka yidhi uuna iskaga dhaqaaqay ninkii aygii intuu ka tegey ayuu sheekhii intuu raacay buu ku yidhi ashhadu waxaan marag kaaga dhiganaya adigana ilaahay hortiisana maragaad iga noqotaa akhlaaqda aad igula dhaqmayso waa akhlaaqdii ambiyada calayhim asalaam halkii buu ninkay ku islaamay akhlaaqda wanaagsan waa halka diinteenna islaamka ugu saraysa weeyaan waana meesha la doonaya muslimiintu nebiga inay kaga daydaan sal alla alay wasalam siduu nebigu reerkiisa ula dhaqmayey akhlaaq wanaagsan istawsuu biاnnisaai khayra khayr buu nebigu uri dumarkiina kula dardaarma khayr khayr ku ogaada mar walba asiraat ilaahay baa aqalada niigu dhex xidhay meel kale u dhaqaaqi maysa aday kuu fadhida aqalkay ku sugaysaa ubadkaagana way kuu korinaysaa adigana way ku raalli gelinaysaa iyadoo haddana hawshaa dhan qabanaysa ayaa gabadha muuminadda haddana guriga dhexdeeda ilaahay ay ku adeecaysaa markaabuu nebigu ohan jiray saxaabadiisa waxaa igu maqala rag reer madiinaha xaasaskooga inay dilaan laakiin waxaa nii sheegayaa buu nebigu raggaa dumarkooga dilaaya kuwa inigu khayr badan maaha buu rasulku kuwaase khayr male buu rasuulku yidhi kuwaase khayr ma leh dardaarankiisa u dambeeyey markuu dhimanayeyna salaaduu nebigu ummadda kala dardaarmay salaada iyo dadka maaragtaane aan milkinay ee ilaahay gacmaheenna uu soo geliyey waa haweenka baa la yidhi iyo addoommaha labadaa ayuu nebiguna kala dardaarmay xuquuqdooda in layska ilaaliyo markaa buu nebigu odhan jiray akmalu lmuuminiina iimaana axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim wa ana khayrukum liahli baa nebigu yidhi akmalu lmuuminiina iimaana muuminiinta kuwa iimaankooga uu dhammaystirma waa kuwa dabeecadda wanaagsanna buu nebigu yidhi kuwa inigu khayr badanna buu nebigu yidhi waa kuwa reerahooga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaa reerahay ugu khayr badan 9 dumara ayaa mid walba haddii la waraysto la odhan lahaa xaasaska nebi maxamed uu jecel xaasaskiisa teebuu ugu jecel yahay haddii la yidhaahdo mid walba waxay odhanaysa nebigu anuu igu jecel yahay hadal xun ma odhan jiray nebigeenu hadday marka cadhaysiiyaan oo ka aamusi jiray bas waliba markee maalintii maaragtaane caaisha iyo xafsa fii suurati taxriim ilaahay waa ka kaga warram in tatuuba faqad sagat quluubukuma wain tadaahara calayhi faina allaha huwa mawlaahu wajibriilu wasaalixu lmuuminiina walmalaa'ikatu bacda dalika dahiir markay nebi maxamed calayh sala slam dumarkiisu ay shirqoolka u sameeyeen oo shirqoolkay sameeyeen muxuu ahaa waxay yidhaahdeen waa ka ilaahay kaga warramay suuratu alaxzaab waa markii dowladda islaamku ay dhaqaale heshay ee magaalada madiina markay saxaabadu dagaal ay qaadaanba waxay la soo noqdaan khanaa'im xoolo iyo dhaqaalay la soo noqdaan markaaba haweenkii nebigu isla hadleen waxay idhahdeen dee dowladda islaamku dhaqaale yeelatay haddee toole nebigu masaarifa noo sameeyo
erayadaabay markaasna dhex wareegeen markaasaa nebiga jibriil ku yidhi dumarkaagii way kuu shirqooleene ilaahay wuxuu ku amray inaad ka hijrooto hijra meel buu nebigu iska galay markaa keligii iska seexdaa lama hadlo cunto uma doonto ma ag jiibsado bas ilaa magaaladii madiina waxaa ku fiday war la leeyahay nebigu xaasaskiisii u wada furayba abu bakr sidiiq radia allahu canhu ayaa soo booday dabeedna markaasuu u yimid inantiisa caaisha radia allahu canha markaasuu ku yidhi aabbo ii fadhiiso su-aal baan rabaa inaan ku weydiiye oo su-aashu maxay tahay bay ku tiri aabbo nebigu muu ku furay may ima furin ma dembi baad ku dhacdeen ha oo maxaa niga dhacay de wax kale ma odhane nebiga weli umaba sheegin isage laakiin annaka dhexdeediibaa waxaan isnidhi nebiga ha loo bandhigo ha la weydiiyo ha la yidhaahdo dowladdii islaamku dhaqaalay yeelatee nebigu biiliya masaarif hana siiyo intaas ma inta unba ahaa cumarna uu socdo xabsi u tegey xabsana u weydiiyey cumar sidii si la eg bay ku tiri marka dabeedna markaasaa nebiga sal alla alay wasalam aayadahan la leeyahay kala doorashada ee dumarka nebi maxamed ilaahay uu kula hadlayo la leeyahay yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajika in kuntuna turidna alxayaaةa الdunya waziinataha fatacاalayn umatickunna wasarixkunna saraaxا jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuulahu wاdaar اlآakhirة faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna أjra cadiima aayadaha kala doorbidashada ayaa nebigeenna markaa ku soo degay oo la leeyahay waxay aayaduhu ku socdaanna waa dumarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam xaasaskii nebigay ku socdaan oo la leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca iyo adduunyada iyo ziinadeeda oo dhinaca kala doorta baa lagu yidhi dabeedna markaa nebigu wuxuu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu ka bilaabay ikhtibaarkaas waana tee caaisha radia allahu canha markaa buu nebigu u yeedha caaisha waxii baa soo degay waxigaa kala saaraya haddeetoole caaisha wixii baa igu soo degay ininku niga warramaya waxigaas ininkuna inagu socdaa waana kala doorasho waana kuu sheegaya qaraar qaadashada ha ku degdegine aabbaha iyo hooyadaa baa noole la soo tasha buu ka yidhi markaabay tihi waa hagaaga bal horta ii sheeg aayadihii qur-aanku nebigu ku dul akhriyo markaabay caaisha tidhi ma hooyaday iyo aabbahay baan kala talo gelin bay tidhi nebi maxamed iyo ilaah iyo jannada may hortaadaan ka qirayaa bay tihi nebi allow maanta intii ka dambaysana adduunyo dambe qalbigeyga ku soo dhici mayso adduunyo dambena ku weydiini maayo waxaanan marag kaaga dhiganayaa markhaati aad iga noqotaa anu waxaan doortay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraan doortay maanta wixii ka dambeeyana adduunyo dambe ku weydiin maayo bay ku tidhi markaasuu nebigu yihi haye way kaa dhan tahay adiga markaabay tihi sida aad aniga ii weydiisay soo xaasaskaaga dambena u weydiin maysid markaabuu nebigu yihi ha mid walba saasaan ugu bandhigi buu ku yidhi markaabay ku tihi haddaba aniga doorashada adiga iyo ilaahay aakhirada aan doortay dumarka kale ha iga sheegin bay ku tidhi halkaa maxaad ka fahmaysaa markaas ila dumarka maseerka ilaahay baa ku abuure waxaad moodaa inay rabta nebiga ina keligeed la soo hadhaba say u yareg tahay de deedna markaa buu nebigu sal alla alay wasalam yihi may wallaahi baan ku dhaartay buu ihi iyakuna ima weydiiyaan oo ima yidhaahdaan caaisha maxay dooratay haddayse i weydiiyaan buu nebigu yihi anna waan u sheegi buu yihi nebi naxariis badan buu ahaa moogta oo dadka ilaalinaya buu ahaa hadday i weydiiyaan oo i yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna wallaahi ka qarin maayo buu nebigu yihi xabsuu ku xijisiiyey yaa rasuulla caaisha maxay dooratay ii sheeg caaisha anay dooratay anna adaanku doortay de ya salaam lanna nebiga sal alla alay wasalam dee doorashadiisu ciyaar maaha dee shaksi caadiya maaha waa nebi rasuulah sayid اlkhalqi weeyaan khayru man daba calaa wajhi اlardi arlada korkeega qof ka khayr badan isaga maba soo marin baa la yidhi aqalkuu jooga naxariistaa kusoo degaysa aqalkuu jooga jibriil baa imanaya calayhi الsalaam aqalkuu jooga barakaadka ilaahay baa ku socda waxyigaa ku soo degaya aqaladiisa
markaasa kulligood ikhtibaarkii ay ku wada najaxeen waxay yidhahdeen ilaahay iyo rasuulkiisa ayaanu doorannay bay yidhahdeen maalintaasuu nebigu yar cadhooday maalintiina nebigu dumarkiisa uu ka aamusay ma caytamin xataa markuu nebigu yar cadhooday wuxuu odhan jiray yaa xafsa ittaqi illaah yaa caaisha ittaqi illaah erayadaa buu odhan jiray inaku laakiin maanta ereydeen isticmaallaa bay kula tahay markii saxaabadu dagaalkii khaybar ay yuhuudda ku soo jebiyeen dadkii sabiga ahaayee ee la soo qaaday magaalada madiine lagula soo noqday gabadhii ugu quruxda badnayd baa nebiga loo doorbido nebiga la siiyey waa safiyata bintu xuyey um lmuminiin radia allaahu canha markaabay saxaabadu ku yidhahdeen nebi allow dadkii aan soo qaadanay gabadha ugu qurux badan ayaan adiga ku daynay ku yidhahdeen qaada nebi allow ila zamankaasi dadka markay dagaal qaadaan ee ciidankii kale gaalada ay jebiyaan ee raggii ay noqdaan wax la laayey iyo wax dhaawacmay iyo wax baxsaday ay noqdaan iyo wax la soo xiray ay noqdaan eheladii iyo reerihii ragga iyo waddankaana ku abuurnaa saynan u dayacmin ayaa shareecadda islaamku waxay ka dhigtay haniima sabyi bale sabyi alfay in la soo qaado dadka markaasi oo dadka muslimiinta markaas si cadaaladda loogu qaybiyo marka waxaa dhacaysa nin in laba qof la siiyo mid saddex la siiyo mid afar la siiyo mid la siiyo ninba dee inta qiyaasta ku dhacda la siiyo de haddana dagaal kalaa la baxaye gaalada waa laga guulaysanayo guusha islaamkay la socotaa magaalooyin dhan oo ubad iyo dumar ku hadheen baa la soo qaaday dadkii waaweynaa si dadkaasi mas-uuliyaddoodu cidlo ay ugu dhicin u dayacmin ayuu markaa nebigu intay soo qaadaan saxaabadu ayaa muslimiinta loo qaybinayaa wamaa malakat aymaanukum weeyaan xaasaskaasina waxaa la odhanayaa waa dumarkooga waa iska guursanayaan waa iska qabayaanoo waxay dhalaanna waa ubad muslima marka haweenaydaas oo aad u qurux badnayd baa nebiga la siiyey markaabuu nebigu u yimid caaisha iyo xafsa wuxuu ihi gabadhaaba laygu deeqoo la ii keenee dee caroos baan ahay gelbiyey buui gabadhan orda iisii diyaariya markaasay u tegeen alle markay u galeen waaba gabar qurux badanba ka wada qurux badanba iyo way sheekisayba xafsiya caaishana way is eegeen labadaasina dhinac bay ka wada socdeen moogtahay oo dumarka nebiga baa layidhi qaarna caaisha iyo xafsaa dhinac u hogaaminaysay qaarka kalena umu salama hogaaminaysa baa layidhi iyo juwayriya markaasay sidaa u eegeen walle tan hadduu nebigu caawa la seexdo dib dambay nii xasuusanba maayo markaabay way u soo hagaajiyeen way ka soo noqdeen xafsaa nebiga ka hor timid xafsa bal ka waran yaa rasuul allah dee way aroosadda waa kaa horeysaay waan ku hagaajinay bal hore u soco hay maxaad aragtay dee yahuudiyad baan arkay bal hore u soco bay ku tiri haddana caaisha ka hor timid oo cadhaysan caaisha waa sii hoynaya bal ka waran waa lagaa horeeyaa dee ka waran maxaad aragtay dee yahuudiyad baan arkay ordog markaabuu nebigu uhi yaa caaisha itaqi illaah waa muslimad gabadha buu yihi yaa rasuul allah waa yahuudiyadeeda u teg bay ku tiri markaasuu nebigu u yimid 7 cisho markaa la jooga iyadii markaabay soo buuqdaan dumarku maalinkiina nebigu ragguu la joogaa iyadana markaa dumarka ayaa u imanayo markaa waa caroosadii waa la maaweelinayaa safiyata bintu xuyey buu nebigu habeen u soo hoyday iyadoo ooyeysa bal sida nebigu dumarkiisa ula dhaqmaya u kala ilaalinayay markaa buu nebigu sal alla alay slam ku yihi maxaa ku helood la ooyeysaa markaa bay tiri yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood markay ii yimaadaan waxay leeyihiin waa yahuudiyad waa tuma iyo tuma waa caaisha iyo xafsa radia allaahu canhum markaabuu nebigu uhi dee u jawaab dee maxaan ugu jawaabaa waa runtoodu ana naag yahuudiyadda aan ahay iyakuna waa gabdho carbeed gabdho carbeed weyaane markaabuu nebigu ku yidhi saad ugu jawaabaysa anigaa kuu sheegi kolka yahuudiyaddii ay ku yidhahdaan waxaad ku tidhaahdaa nayaaday dhegaysta aniga aabbahay nebi buu ahaa adeerkayna nebi buu ahaa zawjkayguna waa nebi maxamed bal naagta intaasoo nebi la xidhiidee la xidhiidh la yeelatay iska soo dhex saara ku dhab buu ku yidhi nebigu aabbaheed waa nebi baa la yidhi nebi haaruun bay ku abtirsanaysay adeerkeedna markaa ayuu noqonayaa muusa kaliimullah zawjkeeduna waa moxamed calayhi الsalaatu wassalaam markaasay habeenkiibu markaa nebigu ku soo hoyda safiya markaa hay safiya maanta farxad baa kaa muuqata bal waran walla dumarkaaga sidaan maanta u gala bay tiri nebi allow
ده كل حلو يتري خلاص أنت هذه شرطة ما كوريو ويس أجاجان ونوح كوريون ما مالي والبانة يهودية بدينا سو تاجن تيرو دلتي ما دانو يهودية ده ما دقوا حسانة أنا قاعد بحيور تما تقانن ما هارون باكو أبتر الصدانو والنبي أدر كينا وموسى كليم الله والنبي زوج كينا ومحمد والنبي ونوقع إنك النبي إنه النقابه لكن بناكت النبي كو أكتر ستين أنا جاهين كسر شيء قبل تلقى صديقة وعيتنا مالين تبا قدام بيسيد دومر كي النبي محمد وكو هذا القاضي إن يرادان يهودية خلق ذا إنك أنا أخلاق ذا الله نسيه ساسو النبي وحاسس كيس ولما عملونا أيه وكلا إلى لنا في بعض كتب وحكتها لك تو كلا النبي قال لسيه مركاسا ويوصو قال دومر كي النبي مركاسي أركن قروح ده جمال كيجا markaasay tani nabiga marka la salaamayo xal lagu salaamo luqada carabiga anigu ma aqaanay bay ku tiri markaasay ku yiraahdeen markuu nabigu ku soo galay habeenkaada waa aroos oo kugu soo hoydo nabiga waxa lagu salaamaa ya rasuulallah a'uudu billahi minka ya rasuulallah ilaahay baan ka magan galay markaas laqad uti cadiiman bu nabigu ilaahay weynaa baad iga magan gashay marba hadaad ilaahay iga magan gashay aniga xaasi noqoni meeside orado dadkiina u tagbu nabigu ku iska sii daayataana marka abu nabigu dhigdo markaas sida ay galeen bal eeg caawa ma dagaalamin ma caroonin kaftan bama alayhi salatu wasalaam ilaahu akhlaaqda inaka nasiib ikhwaani waxaan ka wadaa xajja tarbiyada awlaad nabigu sidoo tarbiyadeynay khudbada mambarka soo taagan buu arkay nabigu xasan iyo xuseen oo yaaciyo soo galay masjidka oo ka dhaadhacay mambarka nabigu labadoodii buu soo xambaaray mihraabku nabigu leeyimiday mambarka dusheedii وعر لبدا مركان أركب مجوجة كربو ده إلى يابي نبي يري إله لبدا وان جعلها عدة جعلاتنا جعلوا عدة لبدا نعذنا إله ونعب النبي يقولي لبدا النبي يقول صدا وقد جعل أمديسا ومدري محي قابل قدي ما تقانان لبدا بولد لي حسين قورتها لقى قويي حسن الصن بلقود لي صن محبة أهل البيت كنا شيعة وات الله ويعطي بغضي أهل البيت كأي نعبايين خوارجين تنا وكو الدين تسد الله بكو وقبح قاصده وكو وقبح وعلي يقول سكيس شيعة علي محبتي سيكو قالوا دي خوارجين تنا نعيب كعلي أهل البيت كأي نعبيين أي كو قالوا بين دقدك قبحين لما داسوا النبي يقول مجوذ كرمار كان أركي إلهي نيجي جعل هذا جعلوا نكينا عنا إله ونع صلاة سقط كنا يهديه مع حسين والنبي قد أمرك كفولو نبي سجود أبو دريسنا يا لين وصلنا أمرك النبي قلت كنا حسين أمرك النبي قل مسكت الفرد وكل عياره لنا النبي حسين وعيار سينا يا حق قلبي أنا النبي قل أيوك كحرية هي إلهي بك كحرية قولون كذا حابس من الأقرع نرمية أيها النبي قوي مدير يا رسول الله أبدك ما عيالك ما دون كتاها وان دون كنا بيقولوا أبد كيني والله أنو تبون ويل بعد ولا منك ما دون كم بيقولي بركة بيقولي ده محن كل سماء هدي قلبك إلى رحمة الله وكساري محن كل سماء هدي إلى هاي قلبك أو نحريستي وكساري محن كل سماء أبو النبي قوي من لا يرحم لا يرحم نك أنا النحريس أبو النبي قوي إلى هاي سجن ومن نحريسته عمر بن الخطاب سيرتي سوحة كتها لا سجنا للصحابة كمدا عمر ويمدو يري أنا ما ركتان الدولة الإسلام قوات بلارتين مدح يقدق ومقالة والي يقدق ومقالة يديب برقاس عمر كل رضي الله عنه وارنتها وهداك ودقل انت إن مقالة لقود ديبو لكن نوت كتكون شغطة يسبرا كود ديارين صباح دي وصوك الله بوكيدي حوي مدى عمر بن الخطاب وعيالك ودلي يكو أوها لا عيار يا دنكنا يا نو اسناء دنكنا يا مركز يا أمير المؤمنين وعيالك يرمى لدن كذا مركز ها صعوبة كيجي ما والله أنا والعيالك يجي من دم كم بودي مركز عمر كودي ورقدان كودي بي بليس علي وكقاضي وكجحجح أقل كاجا فريسة بوكيلو رير كاجا أون حريسة هرت رير كاجي بعض أون حريسة ويدي المهاجية سداد ما تقولنا حريسة بوكيلي لك مسؤول نقولنا يا وإنه هذا نن عدالة سمينا يا نك مسؤول أمدن ونقض الدونا يا وإنه هذا نن حريص بدن نك مسؤول نقولنا يا وإنه هذا
nin ummadda ka fikiraya mustaqbalka ummadda ka fikiraya taasay hayeen saxaabada rasuulku iyo nebi maxamed sal alla alay slam awlaaddooda waqti bay ku bixinayeen diintay ku tarbiyadaynayeen inaku maanta waxaa leenahay ilmihii iskuulna waa dhigtaa dugsi qur-aanna uu dhigtaa macallinka dhabtu waa hooyada iyo aabbaha hadday labada gurigooda ay ku hagaagaan dhexdiisa oo ubadkooga guriga ku tarbiyadeeyaan ilmuhu tarbiyadda aqalka uu ka soo qaato bannaanka ula soo baxaya maalin dhoweytaan sheegayey cabdulqaadir jaylaani allah u naxariistee siiradiisa waxaa ku taalla isagoo yar agoon buu ahaayo yaraan buu aabihii kaga dhintay hooyadii baa dhaqaale intay soo siisay ku tidhi safarkaa magaalada u socda raaco orodoo cilmiga culummada ka soo baro safarkii iyo dadkii uu la socday ayaa niman tuugo mooryaana dhexda u galay daadna markaasa waa habeen madow qof walba markaa wixii uu sahay haystay buu qarsanaya markaas marka tuugii horreeyay baa qabtay isagii oo yidhi waryaa yaroobe maxaad istaadu marka lacag badan buu sheegay soo saar oo u dhiibay waa lacag aad u badan waa maxay lacagta intan leg طالب العلم بانه مقالة تجيو حلقات كمساجد كسعودان كنت تحميا لأنه مصاريف تيدي السنوات أن عني لهايو هو يدي بيسوسيس ودتك واكو وحوك قرقرسنة نجا قرسنة يه هذا محدو يدي وعر هو يدي بيقول دردارنتو يقول تري ولقى بينها شيء حداد بين لون نقطة إلى هين أكون نعب بني آدم ويكون عيانه وربنا لها حتى قالوا ما يجعشها يا بين الله عندنا ما جعله ظالمك عندنا ما جعله بلن باجيه ددكم ما جعله توق ددكم ما جعله عاقل والديك ددكم ما جعله مفسدك ددكم ما جعله هو يدي با يقول تريبو يري ولقى بينها شيء حداد بين على النقطة إلى هنا وكن نعي بني آدم كانوا يكونوا عيانين هو ينكي gacantuu qabtay tuugiinta tuugii ugu weynaa buu u geeyey bal ilmahan wuxuu leeyahay dhegeyso uu dhegeystay kiina uu ooyey maxaad loo eedeyn baa lagu yidhi tuugiinta ugu weynaa wuxuu yidhi hadday hooyadii la mid noqon lahayd aniga hadday hooyadii la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yidhi bal fiirso tarbiyadda waalidku ilmaha saamayn bay ku yeelataa tarbiyadda waalidku mustaqbalka ubadkayna hagaajisaa maanta inaku markaan aabbayaasha ka sheekaynayno maxaan idhahnaa may naga fiicnahay mise waan ka fiicannahay bal sheega de say nooga fiicnahayn innakaa ka oqon badane oo ka ree magaalsane sheega way naga dadnama fiicnaayeen xataa sida maanta inaku aan diinta aan u maqalay ee culammadu ay nakay noogu dadaaleen iyo kamaa loogu dadaalay ma helin 50 sano ka hor 30 sano ka hor saxwada maanta inaku aan haysanno iyo dacwadda iyo culummada iyo maaragtaan ijtimaacyada iyo khayrka socda iyo kumay helin innakaa ka jaamacado fiican innakaa ka aqoon badan innakaa technology soo gaadhnay maanta innakaa ka aqallo qurux badan innakaa ka muwaasalaad fiican innakaa ka itisaalaad wanaagsan adduunka daafeega kii joogay ayaad maqal iyo muuqaal imika sida aad u daawanaysa haddadan way la socdaan baan u malin dadka adduunka jooga way dhegaysanayaan dadnimada iyakaa naga fiicnaa laakiin xagga materiyaalka innagaa ka materiyaal badan haddaad leedahay aabbayaashayo ayakoo teknolojiga inaku maanta aan haysaneen soo gaadhnay iyakoo aanan soo gaadhin ayay naga dadnama fiicnayn haddaan leenahay kuwa inaku aan dhali doono say noqon doonaan bay kula tahay kuwa aad dhali doonto sidee noqonaya kuwa anu aan dhale sidee ku damay doonaan kuwaan dhalle kuwa si dhali doonaan siday noqon doonaan bay kula tahay macallin carab jabaquu lahaa ardaydu u dhigayay alifka alif ba ta ra markuu gaadhay ra carab jabaquu leeyahay ra ma karo la buu dhaa la ardaydu maxay odhanayaan
bal sheegade la un bay odhanayaan markaasuu le aniga idhaama la dhaxada la un bay yidhahdaan say u dhaamayaanba war aniga iga roonaada buu kule carab jabaqaan qabaaye la dhaxada la un bay yidhahdaan maanta zamankan waa zaman adag runtii maanta aan ku dhex jirno ciyaalkeenni waxaan leenahay war bal naga roonaada maxay kaa roonaanayaan iyo aalaadkan ay soo gaadheen waalane ee 99% fasaadka la soo dhex geliyay soo gaadheen qaar baa ku indhabeelay sidaas aan dhax ugu daawanaya ku indhabeelay maxaad ilmo yar ula yaabiba dadkii waa weynaababa maanta ayaa maskaxdoodii bedelantay oday iyo islaan aqal intay ku wada hoydeen ciyaalkiina iska seexiyeen ishaleelka ka waran isna Facebook buu xagga ula jeestay iyadna faasiq buu xagga ula jeestay mid baa la sheegay waagiba ugu bariyay labadoodii markaasuu yidhi naa maxaad caawada ku mashquulsanayd markaabata adiguba xaggeed ku jirta caawad meel kale maad ku jirtay waa dadkii waaweynaa halka hadday marayaan dhallinyarada markaa maxaan kala yaabaynaa kuwa maanta sida kuwa nool ee qaar ee zamankan dhallinyaradan dhalay hadday waxaa soo gaadheen ku mashquuleen ku indhabeeleen oo ku caqli beeleen kuway dhali doonaanna bal ka warrama dadnimo markii la eego dadkii hore inaga dadnamo fiicnaa waayo been ma sheegi jirin iyaku ballan ma baajin jirin qabiil wax la yidhahdana iyaku may oqol gaalna iskumay dhedhejinayn gaalna he iskumay dhedhejinayn inaguna maanta dad baa ku ducaysanaya mid baa beri mid xashka u socda ku yidhi waniba meeshii fiicneed carafaad u socotaa iyo ducada igu soo dar markaas maxaan kugu soo duciyaa bal sheeg wuxuu yidhi yaakhi ciyaalkii labana dibadday u baxday laba un baa igu hadhee labadaana fiisihii baan u xereeyey inuu ilaahay u fudaydiyo igu soo ducee buu yidhi yowma carafa ayuu leeyahay ilaahu ciyaalkayga halkaa ku gur ilaahu ninkaas ay soo faree ducada ciyaalkiisa halkaa u gee war dadnimadii mee aawe dareenkii aawe caqligii xataa cilmigii markaan ku soconi weyne sharcigii ilaahay caqligeegiina maanta muslimiinta kuma socon caqli dad kale ay leeyihin baan ku soconnaa maanta marka dadka inaga dambeeya inaan waddo u jeexno soo maaha say u roonaadaan bal say u badbaadaan mise waan ku daawannaa balii barraba maan ku daawannaa mise waxaan qaadnaa dadaal ku saabsan ay u badbaadi lahaayeen ubadka ay dhalaana ay u badbaadi lahaayeen soo inaan qaadno soo maaha umu sulaym radia allaahu canha markuu nebigu madiinata almunawara uu yimiday inankeeda anas bay nebiga u keentay tidhi yaa rasuul allah islaan maskiinadoo faqiiradaan ayaan ahay waxaan kugu soo dhoweeya ma haysto laakiin waladkan baarigaa ilaahay ku adeega iga qabsa bay ku tidhi way bixisay waqaf diinta ha kaa barto nebi ilaahay soo diray baa tahoo barakaysane ha kuu adeega adiga maalintuu nebigu dhimanayana way dul timid yaa rasuul allah adigan iska bukee khaadimkaaga anas ma u ducaysay bay ku tidhi markaa buu nebigu u ducey nebi allow markaasuu nebigu ugu duceeyey 3 shay ilaahu xoolihiisana barakee buu yidhi cimrigiisana barakee awlaaddiisana barakee anas binu maalik wuxuu noqday saxaabada ninka ugu cimri dheeraa ugu dambeeyey dhintay buu noqday baa la yidhi waxaa kaluu noqday meesha uu joogo muslimiinta ku nool ninka ugu xoolo badan buu noqday waxaa kaluu yidhi 100 anigu aan dhalay buu yidhi godkaan ku rido waan aaso shafeec baan ku aasay 120 wiilna waan la cunteeyey buu yidhi waana ducadii nebiga buu yidhi taas umu sulaym way fahamtay mustaqbalka inankeygu wuxuu ku hagaagi karaa waa inuu nebi maxamed uu adeego calayhi salaatu wasalaam iyo markuu nebigu xanuunku la dhiman doono intay u timiday tiri nebi allow nebi allow inankaygaas mustaqbalku waa taas haddaan doonayno inaan inaku hagaagno ilmaheennu noo toosaan ilmahaan dhalnay ilmahay sii dhalaanna ay noo hagaagaan haddaan doonayno waa inaan nolosheennan aan ku noolayn wax ka bedelo weeyaan qaaradda Amerika ayaa qiso cajiiba la iga sheegay gobolkan la yidhahdo Massachusetts Boston magaalada Boston ru'asaa'ul kanaa'is kaniisadaha ku yaala statekaas ayaa shir bay ku galeen magaalada Boston
waxay ka shirayeen dadkan qaxootiga ee ka keenay Soomaaliya miyaa ku najaxnay oo muraadkan kala hayn ma ka gaadhnay mise waa ku khasaarnay markaasay hadleen waxay yiraahdeen waa ku khasaarnay ila dadkan qaxootiga dhaqaalaha lagu qaaday ayaa bixiya kaniisadaha soo bixiya marka dalka galana kaniisadaha istiqbaalo ugu waan ku khasaarnay buu yidhi mid wuxuu waxaan ugu khasaarnay madaaristii qur-aankay fureen masaajiddii bay dhiseen xijaabkii iyo shacaa'ir alislaam bay muujiyeen kaniisadihii bay naga iibsadeen ee masaajid u bedileen aadaankiibaa gobol walba ka baxaya shacaa'ir alislaam dhallinyaradoodu garhkii iyo khamiiskii bay muujiyeen waan ku khasaarnay ku kala hadloo yidhi may kuma khasaarin borosasku meel fiican buu socdaa buuhi meel fiican si fiican bay ula haystaan buu yidhi waayo kuwa annaku aan keennay iyakoo waaweyn uma soconno kuwa ay gacanta haysteen ay laalaadinayeen ay la yimaadeen dalka ku soo dhashayna uma soconno kuwa ku dhali doonaanna uma soconno jiilka afraad baan u soconnaa buuhi ku dhalan doona Maraykan ee labaad kuwaabaa masaajidda ay kuwani kaniisadaha kuwani masaajidda ay ka dhiseen kuwaabaa ku soo celin doona buu yidhi maxay kaniisado la islama gaadhin ba imika yaa isla gaadhayba 6 sano 10 sano 8 sano iyagoo joogay bedelmeen dadkii dhulka naga tago dhan inta ilaahay u naxariisatayna ee damiirka iyo dareenka lahayd ee duca hore ee u sabaqdayna waa kuwan dhashoodii kala soo yaacay la iskala imay waxaaba la isla soo galay wadannada islaamka 2 sano ka hor annagoo xajka joogna ayaa supermarket halka ay Djibouti degan yihiin u dhawaa ayaa xilliga fajarkii aan ka soo baxnay salaadii waxaan iskugu imanay dhalinyar wadanka u dhalatay Makka Mukarrama ku dhalatay Makka reer Makka oo surwaal gaaban qabta waxay xiran yihiin surwaal gaaban baabuurkana music ba ka baxayo bug ba oday ba yaabay saas war Xuseen soo kale buu dhahay meeshaan joogno ma Paris ba buu mise waa Makka Djibouti Paris bay tagaane markaas aan ku yiri waa Makka tal Mukarrama xaafad Zaahir baan joognaa markaas dhashani ma kuwa dibadda ka yimiday oo meesha ku soo qaldamay mise waa deegaanka dhulkan markaas aan ku yiri waa weydiinba baan weydiiyay manayna min Makka مواليد مكة أنت مواليد مكة وعد مكة كل شيء بقوله هاي بان كيري مركز مدح قبسة وذي درين لبو هاي وفكرة موقته والداعية وحول واحد كتر هذا سروال كان قابني هذا إنكو عاد مكة نحن ذا قوة ضتان أنا كدت كيجي يدل كيجو سجاش ميدي بالله سو قد بيبوري شني سجاش كي هالك رجبوتي أي مريين كله أياد إنكو ما أنت مرة سر مكة مكة لا بدلي كويت جاي مرجع محد كوريسن كي الرياض كل شيء لا بدلي كي مدينة كل شيء لا بدلي بلاد الإسلام قهر الإسلام كي كل شيء أيال لا بدلي سيدنا لقوا بدلي والله فكرة يا والله قوسوا مقيا هي أديك إنك كنا ما توان هردا ما أنت إلى الهردا كعنا الله بحيا هي مركز ودين تاني الله نسيي وبتكنا كتر بيدينه رجعنا aan dacwadii dadaalka diinta aan isku taagno hadaan diinta u gargaarno ilaahay ballan buu noo qaado wuxuu yiri yaa aamanu in tansurullaha yansurkum daamakum ba ilaahay yiri kuwa ilaahay nabiga rumeeyayow haddaad ii gargaartaan ba ilaahay yiri oo diintayda u gargaartaan aniguna waan inii gargaar gommadihiinana xaqa ku sugayaa ba ilaahay yiri haddaan ilaahay diintiisa u gargaarno yaa noo gargaaraya wargargaarka ilaahay kaaga baahan yahay waa maxay adigoo daciif waxay ka dhigan tahay haddaad diinta kor u qaadaan haddaad diinta ininku ku dhaqantaan haddaad walaalihiinna muslimiinta u nasteexaysaan haddaad ubadkiinna diinta bartaan haddaad diin ku wada dhaqantaan haddaad diinta ka tashataan haddaad diinta dhaqaalihiinna ku bixisaan haddaad madaaristii masaajidda iyo dacwadda iyo khayrka aad dafaqaysaan oo diinta ilaahay ka shaqaysaan ilaahay baa lana waa nii gargaarayaa zilzaal kastoo dhaca caalamka fidnad kastoo timaadana
ندقاجين كري ميسي اللغيهينا قمدهينا أنا حق كسو يا بايلا هيدي فتنة بصوص عطلنا الدجال مؤمن كالدجال وحبك قادم ما يوقو بركة ولا ليال وحن كسو قبقبين يا نصيحة دايداس dhagaystayaal diineed oo wanaagsan waxa ka fiican shaqaale diineed oo wanaagsan arbaxa ka fiican nin baa la marti qaaday wuxuu yiri nimanka maanta na marti qaaday way mahadsan yihiin haye laakiin ninka barina marti qaaday dowlad ka sii mahadsan buu yiri saad masjidka u soo amirteen waxaan ilaahay waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr laakiin waxa ka sii mahadsan oo aad ugu sii farxaynaa ninka ilaahay dartii u baxa ورياضهين هدان ما أنت إنكو أن حقك هاللي وينو بعض الكالقوقو ياري هدان مساجد عمري وينو مقايدات عمري هدان مسلمين تأد حوجيني ويدد ومسلمين تعلماء يدعاء قربوا نقوني ويدد ذاتك بعض الكي سياسة دي قبيالات كالشقية كوا بعد هيلو نقوني ساعة لذلك سدا درادد إن شاء الله وذن نيودا إن وقت جينا نقالين إلهين نقليي إن قارنو سيدو يا سيدنا نيونا يا شباب دمبي والدين تنا الله داف دين الله ينو معني مرل كان الله شافي موتات كان الله ونحرست امن ايمان كان الله ينو زيادي ددكن ودن كلا دين تاعنا هينا الهي هدايتها ku galadaysto ha u furo muslimiintana baaba muslimiintana albaabka toobada Allah noo furo gaaladan albaabka hidaayada Allah noo furo dadkeena luqadeena ku hadlay dibadaha inaga maqana meesha ay joogan Allah noogu ilaaliyo diintooda Allah ku ilaaliyo aqeedada Allah u ilaaliyo shariicadooda islaamka Allah u ilaaliyo kuwa la bedelo ilaahay kama dhige kuwa iyagu wax bedel Allah ka dhigo nin walba oo kurbeysana kurbada halka ka Allah qarba naga xanuun ugu duceeyo mar walba leh caafimaad sariica Allah siiyo midul muraadkiisu macsilana gacanta midig Allah ka siiyo istiqaamana Allah ina siiyo timadan Allah inoo hagaajiyo عذاب القبر يا عذاب المحشر يا عذاب النار الله ينقبض باديو فردوس الأعلى الله ينقود جوار الحبيب عليه الصلاة والسلام الله ينقيه محمد عليه الصلاة والسلام حوض قصة الله ينقو أروريو هدي سنة الله ينقود له استقامية قبولنا الله ينسيه هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد